akhyaarta sharafta leh kusoo dhawaada casharkeenii maanta wuxuu ku saabsan yahay candlesticks. Marka candlestick-yaasha qiimaha badan iyo maaragtay waxay yihiin iyo waxay qabtaan aan rabaa maanta inaan sharxo insha Allah. Marka candlesticks-ka waxaa jiro candlestick-yo la dhaho bullish engulfing iyo bearish engulfing iyo waxaa jiro candle-yo maaragtay ay ka mid yihiin doji iyo hammer iyo maaragtay spikes iyo maaragtay morning star engulfing iyo bearish star evening star. Marka doji iyo hammerka iyo inverted hammerka iyo kuwaas dhan maaragtay waxaa u aqaanaa ani ahaan maaragtay rejection candles u aqaanaa candles. Okay, marka maanta waxaan rabaa inaan idinku sharxo candlestick-yaashan. Candlestick haddaan maqashine waa kuwan waa infanted kuwan kor u socdo hoos u socdo kor u socdo hoos u socdo qaabka loo akhriyo maanta baran doontiin iyo maaragtay hadhowtii ahmiyadda leedahay hadhowtii gadaal dambe casharka ka ogaan doontiin, laakiin halahan inaan maskaxda kusii haysiin aan rabaa. Marka bullish engulfing waxaa waaye marka marketka oo sidaan u socdo lower low lower high u socdo meeshaan oo kale markaa ka heshid candlestick pattern oo saa u yaalo waxaa waaye kan salka ugu dambeeyay waxaa agtiisa ka subsamay buy saan oo ku jibaarmo kan waa candleka bullishka buluuga waaye, kanna waa guduudka marka taas micnaheedu waxaa waaye tan buluug caadi ka dhigno. Okay, taas micnaheedu waxaa waaye bullish engulfing waaye. Pattern bullish engulfing markuu saan yahay wuxuu caddeeyaa reversal. saddexdanba waxay caddeeyaan reversal ama kala wareeg saa u kusaysin af Soomaali qaybta raali noqdo. Reversal kana reversal waaye. Saddexdaba waa saddexdaas reversals waaye kala wareeg ay caddeynayaan. Laakiin labada ugu horeyso anaka trade-yaasha markaa galayna isticmaalnaa xitaa aad u muhiim u yihiin. Kan laakiin rejection candleska caddeyn waaye inuu reversal dhacayo laakiin entry ahaan trade ma ku qaadano. Okay, kan muhiima marka bearish engulfing-ka bullish engulfing waa kan waxaa waaye buluuga wuxuu ka dheer yahay guduudka laba jibaar. Marka waxaa waaye bullish engulfing nadiif waa meeshaan oo kale marka anaka hadhowtii waxaa arki doontaa bullish engulfing anaka raadinayno sida trade-ka ugu qaadan lahayn stop loss-keena wuxuu ahaan lahaa meelahan trade-kana wuu sii socon lahaa. Marka bearish engulfing waxaa ka raadin doonaa markii marketka oo subsanayo highs higher lows kor oo joogo inta camal joogo shift oo dhaco meeshaan oo kale haddii aan ka aragno candle buluug saan u socdo oo candle kale maaragtay guduud saan u soo qaado oo kusoo bato taas micnaheedu waxaa waaye waa bearish engulfing waaye. Meeshaas markaa salka qaadanayno salka soo qaadanaa meeshaan oo kale salka soo qaadan lahayn stop loss-keena wuxuu ahaan lahaa meelahan
targetkeena meelahan hoos ka dhex okay marka bearish engulfing waa kan waaye bullish engulfing waa kan marka khayrta inaa fahanteen bullish engulfing iyo bearish engulfing aad ayaa u rajeynaya iyadoo tusaalooyin ahna waa sidan kan waa bullish engulfing higher high higher low bullish engulfing soo jeedin waa kana bullish engulfing mar saddexaad bearish engulfing arkayna waxaan ka raadinaynaa kor bearish engulfingka waa kana bearish engulfing toos nadiif bearish engulfing labaad bearish engulfing saddexaad marka bearish engulfing waa kaas bearish engulfing kalena kor a ugu jeeda waa kana marka khayray bearish engulfing waa sidaas tusaalooyin yar ama sawiro hadda idin tuso oo caadi ah waa kan bullish waaye mujda bullish engulfing guduudka waxaa ka dheer cagaarka oo baayiga ah ku dheeryahay almost hal jibaar camal waaye marka iyadoo bearish ahna waa tusaale meeshaan xasuustada sawir ahaan uleeyay waa kana bearish engulfing waa kana bearish engulfing waa kana bearish engulfing nadiif ah bearish engulfing nadiif ah bearish engulfing waa kaas marka khayrta bearish iyo bullish engulfing inaa fahanteen rajeynaa marka rejection candles rejection candles u gudubno rejection candleska waa noocan oo kale waaye momentum la-aan waaye kala wareego caddeynaa waa istilaab wax yar mujidin kan doji waaye kan waxaa waaye hammer kan waa hammer kan waa iska doji oo kale rejection candles la marka waxaana idin awjeedid waa rejection candles meeshii aad ku heshid percentage qiimo ah ay leeyihiin marka waa baran doonaa insha allah marka rejection candles waa kuwan example waxaa laga raadiyay iyagana waa kana meeshaan oo kale fiiri tusaalayaasha waa kana rejection candles mujida baabaan daciifkan mujida rejection candle waaye meelaha kala wareega laga raadiyaa meeshaan oo jeeda hadda hammer oo kale waa kan yar waa isagana tusaale rejection candles kale waa kan markan leeshaan tabarta daran iyo maaragtay candleyaasha noocaan oo kale ah waa candlesticks oo caddeynayo inay kala wareeg dhici doonaan maaragtay reversal caddeynayo marka I hope inaa fahanteen guys insha allah waxaa waaye waa weli bilaaw casharadii si fiican gadaal dambe ugu fahmi doontaan iyo qaabka laga raadiyo meesha laga raadinayo wuxuu idil fahanta area of interest dhexdiisa laga raadinaa area of interest waxa lahane waa baran doontaa fahanta hadda kan fiir meel fiican oo ka helnay baagana dhac hadda fiir kan meel fiican oo laga helay isilkana dhac kan fiir hadda beerkan baaga dhac marka insha allah waa baran doontiin rejection candleskana waa saan u yeelaa screenshot ka qaata sawirta saan u yeeli karaa marka waa muhiim insha allah gadaal danbaa si fiican ugu fahmi doontaa macnaha oo leeyahay rejection candlestickska iyo maaragtay bullish iyo bearish engulfingska insha allah marka inaa fahanteen rajeynaa akhirta hay wanaagsan